warkiis waa maskiinkii Nairobi joogay Cabdisaaq Suubane ablenkiisu ya Mursal Cabdulaahi hamsan gurwacan hambalyo san gurwacan maanta ay taariikhda 4 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان جعلستي أنا وماشاس آدكي آدك وقروح البضان فديو إن أوهم بليو سنفوركس تيم سنفوركس وحان لي هاي وحي بوحيسي لبسانو وحان كدن بيمانت إن هرمركاس آدك وقروح البضان سو قارنو انجينير محمد جامع إيشار ماركو ما شاء الله ذاتكي dadaalay horumarkan weyn soo gaarsiiyay ee company-gan Sunforex la yiraahdo anigana waxaan kamid ahay leaderskii iyo ardaydii ku guuleysatay barnaamijkan ayaan kamid ahay aad iyo aad ugu faraxsanahay waan u hambalyeynaya waxaan leeyahay keep going German Maxamed Jaamac iyo Sharmarke waxaan leeyahay keep going walaalaha Soomaaliyeed markas way idin duceeyaan intaas iyo in ka badan waa idin ka sugeena gacmahooda jir bay wax ku gooyaan insha Allah anagana waxaan nahay garbihi ku duuli laheedeen hambalyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجرد محمد وجود تركيا كان همبلوين وبالعرم قدرية بحذا سنفوركس ميلو الوجود تركيا كان وهمبلية سنة كورة نوعات ما شاء الله هذا نسيم سعيد وأنا صقر خبطان وحان صوب قران يعني أنا وكبير بشهر لصور ضعفي ويك أو كلية أسبوع لصور ويك أو كلية مرة كبيرة just مواكنا مات مين قاعد سكتر الجرينا أنا هاي أنت اسمع هذا أنا بس وحسك الاستاذ كأحيو ليدر ولا أنا جرب خبطان وحنا العاي وعن أي أرضي كنت تصم بعض سنفوركس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاعي عمر أحمد جوجو دولك إيطالي جارهان مجالة فرنسا كليب كان يروحان وصل دوبي إن نوهم باليويو لمان أرضي معلمين تكوينها سنفوركس ميل والبي الدنيا كجوجان وحان لا يحيي همبليو بدال يجود قلب بحيين مريه سوان أرجنا إن شاء الله وحنا رجينا إن حقيقنا إن شاء الله قوله عن هري وقارنا يقوى كبدا ما شاء الله وحا حقيقة بدالك مقدئين ويحيمت ويعني أنا لسكين دتيري كريم مركي إن شاء الله أنا كان يعني إلهي أنا قد يقوم معلمين يا أرضي دتي موينها سنفوركس تمان جهدنا لقوا بحنا معلمين كسيدا يعني مال بوحنا وكينين رجوا صوت جبي لكن أنا الحمد لله نسيبنا وحنا هلنا معلمين هي اللي هو بنا لقرب تاجن marka inaan ka faa'iideysanaan rajeynaya dhamaanteen waxaan leeyahay hambalyo dhammaan liidarada Sunforex iyo hogaamiyayaalkooda ugu horeeyo injineer Maxamed Jaamac Sahal injineer Sharmarke Mustafa Sharmarke Faisal injineer Maxamed Muumin dhammaan samsam ablenkeyga qaaska ah samsam Ahmed kulli waxaan idin leeyahay hambalyo وعمر أحمد أونين له هري أصيب هذا إن شاء الله وحاول بدو ده هاي ما شاء الله سعودين لجاراهي حديثي هذا لسكو دوبيا لسكو دوب مال همبليو كتاسم شكو بيا إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله. Hello السلام عليكم أنا مجاعي عبد الناصر شرطة موجودة على ذلك waxaan hambalyo halkan ugu dirayaa Sunforex registrantay sanadkeedii labaad waxaan u rajeynayaa maaragtay guul iyo success near future insha Allah waxaan rajeynayaa macallimiinta inay dadaalkooda ee wanaagsan ay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وحالي هذا حمد لنا عدي وحن كمي هاي بهوينتا Sunforex وحن السلام يا دمان معلمينتا ليدرسكا يمرتيدا مربا أسو حاضرتا Sunforex ما أنتي وحيكو باقانتا هاي سنة قوردي لباد Sunforex حيلي لا أساسي كسو ورقتي دمان معلمينتا يارديدا Sunforex آدي هذا يانو فرحسن هاي وحن عاوة قبان دونا زوم فرحاد وداقا سيدو كلنا كوسو بنديقي دونا وحقابديدي أن سميني لودي السنة إلا صودا في هدي أي كودافيني wili jaanis baad haysataa wax qabadida dambe oo aan qaban doono ayaan iyagana kaaga faa'iideyn doonaa hadaba hamogaan hana ka maqnaanin ما شاء الله hambalyo ayaan leeyahay dhamaantiin wanaag Sunforex markay soo joogaan clipskaas aan la qaybsanay waa qayb kamid ah leaderska teamka Sunforex ardayda
oo maanta farxadoodii ama hambalyadoodii nagula qaybsanayay dhan clips ama video ah codadka iyo damashaadku aad bay u badnaayeen idinamada qaybsan karno inta dhiman insha allah suunka ayaan ku dhammaysan doonaa haddii lahayno dhammaantiin waxaan leeyahay meel kasta joogtaan soo dhawaada habeen wacan wanaagsan waxaan idin rajeynayaa farxadda aanu dareemayno in nala dareentan insha allah dhammaan inta nagala socoto facebook live-ka inta martida noogu ah caawasuunka tiimka Somforex oo isku duuban ardayda leaderska waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay tiimka la aasaasay tiimweynaha Somforex masha allah wax badan ayaa noo qabsamay waan ku faraxsanahay insha allah waxaan sii gudgali doonaa haddii ilaahay programkeena waxaan ku soo dhaweyn doonaa haddii ilaahay idmo co-founderkeena aasaasaheena tiimka Somforex engineer maxamed jaamac sahal leader aan wada jecelnahay role model noo ah macallin noo ah intiina badanna aad kula kulantaan go live-ka ama macadka IM engineer haddii aad codkayga maqlaysid aad baan kugu soo dhaweynayaa sharaf bay ii tahay inaan caawo farxadan aan kugu soo dhaweeyo isuunka soo dhawo engineer waan dhawahay macallimad ifraax awil maasha allah allah ku barakeeyo sidoo kale dhammaan liidarada Somforex macallimiinta ardayda qiimaha iyo qayaha leh asxaabta kale caawa daawanaysa ama laga yaabo muuqaalkan dib ka daawato dhammaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh codkaygu hadduu si fiican idiin soo gaadhayo 111 qaybta chat-ka igu shaqoon insha allah dabcan zoomkii waa uu buuxsamay daqiiqadii u horreeyay buuxsamay marka insha allah waxaan codsanayaa dhammaan asxaabta in linkiga facebooka in la riixo oo waxa weeye saaxiibo badan loo share gareeyo xiisada caawa asxaabta facebooka naga daawanaysa waxa la videoga insha allah share badan taabsiya si asxaab badan ay caawa xog fara badan ay uga dhargaan su'aalo badan ayaa laga yaabaa in maskaxaada ka guuxayso ay ka mid yihiin Somforex waa maxay goorma ayaa Somforex la aasaasay maxay qabatay Somforex oo ummadda maxay ku soo kordhisay haddeer xaggay maraysaa xaggay mustaqbalka u socotaa waxaas oo dhan baa maskaxaada laga yaabaa inay ka guuxayaan marka please nagu caawi inaad marka videoga dhanka facebooka ay haddana marka la zoomka soo dhigay inaad riixdaan oo dhammaantiin marka aad share wada taabataan kadibna marka waxaan la wadaagi doonaa xog dhammaystiran ayaan haddii alla idmo idinla wadaagi doonaa insha allah facebooka Somforex asxaab badan kulli waa garanaysaa baan filayaa asxaabta aan garanayna haddeer ayaan insha allah screenka kula wadaagayaa qof walba insha allah facebooka Somforex leedahay pagekaas qof walba like ha saaro ha share gareeyo dabcan muuqaalkiina wakaas maasha allah 15 share baa ku dhacay insha allah share fara badan taabsiya qof walba share garee inta caawa nagu caawi si walaalo badan oo Soomaaliyeed oo dafaha caalamka joogay ay xog dhammaystiran caawa ay u helaan waxaan rabaa haddaba xiisada qaybta hore ayaan rabaa inaan qaato daqiiqado kooban waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog dhammaystiran bilowgii Somforex iyo waxyaabihii uu qabsoomay horta documentigan aan idinla wadaagayo arday kasta waxaan kula talinayaa sidoo kale caawa xiisad daawanaya ama dib ka daawanayay in uu wax qoro Soomaalidu waxay tiraahdaa muxuu hadal qiimo leeyahay wixii la qoraa quruuma hareed يعني وحي لا قرا هذا قرتيد waxaas waxa laga yaabaa inay mustaqbalka dambe inay loo aayo ayaa suurtagal ah dabcan safarkan dheer ee aan soo bilownay aniga iyo saaxiibkay marna walaalkay marna business partnerkayga macallin Sharmaarkay horta ma sha Allah soo qora safarkan wuu ila soo bilaabay ilaa had yartana treenka waan wada saaranahay iyo liidaro fara badan oo hadda Somforex ka mid ah oo waxa weeye han noqdaan liidaradii hore ee nala bilaabay duruufaha laga yaabo in wadi kar waayaan ama caqabado ay qabsadeen han noqdaan liidaradii dhexe iyo han noqdaan liidarada cusub dhammaan liidarada dhan ma sha Allah loo soo qoro Somforex halkan ay maanta taagantaa ma soo gaadheen haddaan la helin liidaro isku duuban oo waxa weeye waqtigooda u hora walaalada Soomaaliyeed dabcan halkan documentiyo badan ayaan ku ururiyaa oo ku qoran oo halkan aad ku arkaysaan halkan oo kale hadeerto waxaad ku arkaysaan haddaan screenkayga aan soo dhaweeyo waxaad arkaysaan maalinkii aan diiwaan gelinay account-kayga I'm Powerful IML aniga Sharmaarka aan gacanta ku dhignay aan diiwaan gelinay date-kaas haddaad aragtaan one soo qora waa 2018 bishii 8aad afarteedii waa the date aan register garaynay I'm Powerful Somforex-na aniga Sharmaarka aan dibadda u taagnay waxay ahayd maxay waa maanta oo kale maantana bishu waxa weeye waa 4 waana bishii 8aad
sanada 2020 waxa halka ku dhamaaday oo arkaysaan 2 years sawirkaas marka aan qaadayay mar hore ayay ahayd bilowgii ayaan sawirkan kiibin halkan iska dhigtay wadada aan marka aan sharmaaka isla qaadanayna waxay wada cad oo noo muuqanaysa halka ay ku dhamaanayso saadarteed marka trainkaas ayaan marka u adkaysanay inaan caqabad kasta oo nala kulanta inaan marka aan difaacno aan adkaysano had arkaysaan sawirka hadda halkan yaala isagana aan rabaa inaan soo marka hawsha ka bilaabo waa markii hadda sawirkani qoraalkan markaan qaadayo waa sanad kadib markii casharka aan duubay ee Facebook ii soo xasiyay waa casharkii ugu horeeyay ee ku saabsan forex ee aan duubo ayuu ahaa casharkaasi date ku qoran waxay bisha Agosto 17keedii 2018 that time maalinka aan isdiiwaan gelinay account-ka aan furnay iyo maalinka waxa u dhaxaysan marinaya 13 maalmood 13 days waa casharkii ugu horeeyay waxaan filayaa dhalinyaro fara badan hadda xiisada ku jirta liidaro fara badan oo caawa daawanaya macallin badani in lesson kan oo ah kii ugu horeeyay daawadaan ay soo jiiteen waxa laga yaabaa halkan hadda leedahay dhanka YouTube-ka ma naga tusi kartaa waxaan rabaa halkan inaan ka tuso YouTube-ka dad channel-ka Sahal Software aad baadhid oo Sahal Software aad YouTube-ka baadhid anigu waxaan jecelahay waxay inay noqdaan ituso taabsi YouTube-ka u horeeya casharka arkisid haddaan casharka riixo bal hadda chat-ka ku soo qor casharkaasi goortu ahaa hadday ku muuqanayso videogaasi goorma ayuu ahaa oo jeedaan Soomaa bishii Agosto 2020keedii 2018 ayuu ahaa almost marka 13 maalmood ayaan barnaamijkan AML baan ku jirnay waxaan xogtan kula wadaagaya in casharka ku noqoto lafteeda maanta aad qiimaysid bari waxaad noqon garanaysid bal waa inaad mar kasta talaabo ka saaqaysid waa inaad document ka samaysid waa inaad wax qortaa oo aad wax reebtaa waaya videoga waxaan filayaa almost 157,000 oo qof in ka badan ayaa daawatay oo videoga ugu saameynta badan ayaan filayaa video laga duubo forex ama videoda ugu badan ayuu noqonayaa laga daawado ama forex laga barto waayahay waxaan rabaa marka inaan halka hawsha aan ka soo bilownay aan idinla wadaago xog yar oo waxa weeye aan maanta ka diyaarinay waliba Allah barakeeyo macallin salaamullah ma sha Allah soo qora oo isagu soo diyaariyay PowerPoint-ka hadda idin wadaagi doono insha Allah hadda artaan waan soo qora sanad guuradii labaad ee Sunforex waxaan idinla wadaagi doonaa haddii Allah idmo waxyaabaha noo qabsoomay intii marka qaar kamid ah ayaan soo qaadan doonaa insha Allah waa tirabeel waxa qabsoomay labadaas sano laakiin waxaan rabaa qaar kamid ah inaan idin wadaago si aad ugu marka cibro qaadataan qof walbana marka kursigiisa uu xijisto bilowga maalinkii aan bilownay casharkii hadda aan tusayay markii laga bilaabo waxa aan gabagabeynay oo aan ku faaninaa ilaahay fadligiisa inaan dhamaystirnay education system waxbarasho oo dhamaystiran oo forex ah oo leh bilow meel aad ka bilaabaysid ilaa iyo meel aad ku dhamaynaysid indhi leh oo af Soomaaliya inaan diyaarinay ayaan caawa aad ugu faraxsanahay haddii ay ardaydu markhaati ka yihiin lambarka 11 chat-ka ha igu soo qoraan haddii course-ka forex-kii bilow ilaa dhammaad u dhamaystiran yahay laga bilaabo waa maxay forex ilaa iyo circle-ka suuqa ku wareegayo elliott waves-ka market geometry-ga haddaad haysaan 11 soo qora alxamdulillah waa guulaha ugu waaweyn aan isleeyahay waad gaadheen maanta waxa weeye 2 sano kadib system dhamaystiran ayaan gacanta ku haysanaa oo Soomaali ah oo bilow kaasoo waliba haddeerto aan dareemayo ama barihii u dambeysay dad xitaa aan Soomaaliyahan ajnabi ah intay koorsooyinka arkeen soo jiiteen oo codsanaya in aan channel-ka ayaga ku soo darno qayb English ah oo manhajkan oo dhamaystiran hadda waa dad kala duwan dibtooga meesha signal aan soo dhigno channel-kan leenahay waxa ku xiran ajnabi aad u fara badan soo ku xiran oo signal ka qaata oo mahadiyay course-kan ama manhajkan sida dhamayska tiran aan dhamaystirnay waxa marka maanta qof kasta oo ku faanaya Soomaaliya basically technical-kii intermediate advanced-kii inaan dhamaystirnay alxamdulillah rabbil caalamiin halkaas aan ku joojinayna maya waxaan wadi doonaa hadba update iyo daraasaad iyo cilmi baaris sidaan horeba wadnay ayaan wadi doonaa haddii alla idmo annagoo markaa channel-ka soo gelin doona waxaan ku guulaysanay zoom joogto ah oo habeen walba saacadda 9 fiidnimo baxa kaasoo macallimiin kala duwan Sunforex ay qabtaan barnaamijyo kala duwan oo midba mid ka xiisa badan yahayna lagaga hadlo kaasoo dhiirigelin fara badan ay ka heleen dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed haddaad inta haysaan 11 ii soo qor insha Allah waaye maxaan kale oo maanta aan ku faaraynaa oo aan noo qabsoomay
aan idinla wadaago muuqaalo badan screenka eeg oo note galayso insha Allah screenka eeg oo note galayso insha Allah waxaan noo qabsoomay systemka waxbarasho markaan dhammaystirnay oo socday inaan samaynay qolal waxbarasho oo level ah oo WhatsApp groupyo ah oo systemkooda iyaguna fadhiisteen macallimiin kala duwan oo Sunforex ay gacanta ku hayaan macallimiin badanna soo maray dhammaan macallimiintii soo maray u horeeyay soo bilaabay iyo kuwa hadda gacanta ku hayaba please ila dhiirigeliya lacag siin mayno ma sha Allah iyo ducaa isu raaciya in Ilaahay barakeeyo macallimiintii suurta geliya manhajkan dhammaystiran waxaa jira markaa qolaya level 1 oo basic ah waxaa jira level 2 oo technical ah waxaa jira level 3 oo intermediate ah iyo waxaa jira level 4 oo advanced ah afarta level oo waxbarasho dhammaystiran oo qofkii raacay midhiisi hadeerto aan hayno aan ku faanino afarta level qofku markuu dhameeyo ee forex ka dhameeyo masiideena maya waxaan leenahay maxay waan gacantan ku haynaa ardaygii waxaan leenahay level 5 baa la geeyaa dabadna waxa la yiraahdaa account dema kori boqolkiiba 12 maalmood isku xiga markuu hadduu koriyo oo uu ku baaso waxaan geynaa level 6 oo ah isna leeyahay boqolkiiba 3 kori 15 maalmood isku xiga oo waliba real account ah haddii ardaygu uu xiseynayo uu leeyahay realka dib baan dhiganayaa waxaanu samaynaa boqolkiiba 5 kori ayaan niraanaa oo level 6 ah level 7 ardayga waxaan niraanaa kori markuu gaadho boqolkiiba 5 real account kori kaasoo markaa ka dhigaya ardayga level 7 dhaafa ee boqolkiiba 5 ku guuleysa saan hadda ka hor 10 aan intermediate ka dhigay account korinta aan dhigay cadaynaya hadduu ardaygu halkaa ku guuleysay boqolkiiba 5 inuu accountka maalinkii koriyo haddii ardaygaasi $123 kaliya uu real account ku shubto almost sanad iyo 7 biloodna uu shaqeeyo suuqa muxuu noqonayaa qofkaasi yaa ay soo qoraya oo 10kaasi fiican ula socday yaa ay soo qoraya muxuu qofkaasi xaguu tiigsanaya haddii uu boqolkiiba 5 accountkiisa ka adkaado sanad iyo 7 biloodna uu saa ku wado anoo waliba idin maxay sida shimbiraha ayaynan wax u shaqaysanay yani qofku waa inuu laba account samaystaa oo real ah account uu noloshiisa biilkiisa iyo ku maareeyo xaaladiisa iyo account uu koriyo oo san lacagba ka saarin oo wuxuu faa'iido u daayo qofkaasi wuxuu noqonayaa maxay ma sha Allah millionaire six figure ayuu noqonayaa wana planka aan ardayda Sunforex u dejinay weeyaan marka 7 qofka dhaafa un baa garan karaya marka midhaha markii laga sheekeynayay ee uu marayay intermediate ka marayay markuu 7 soo gaaro un buu marka gaari doonaa dabadna waxaanu sameynaa level 8 oo ardayga aan geeyno marka ardayga uu qalin jabiyay hadduu boqolkiiba 5 ardaygu ka adkaado maalinkii millionaire hayso diyaari qolka ha ku nasto bustiisana iska dhigto dabadna cilmigii mafruuq ka qaada may revision ha sameeyo wax cusubna ha raadiyo si raaxalana accountkiisa u koriyo haddii aad inta aragtay oo u soo jeegteen waliba casharadii oo la duubayo ardaydii accountnada soo korinaya bal 99 chatka ku soo qora dhanka facebookana 99 ku soo qora waxaan filayaa markasta waa idin la wadaagnaa update-ka statuskayga youtube-yada Sunforex meel walba gurbada waad ku aragtaan arday 5 ka baxaya 6 ka baxaya 7 ka baxaya every day aad aragtaan waa waxa kale ee aan ku faanino ugu waaweyn ayuu ka mid yahay manhajka ama systemka dhammaystiran kan ayaa marka wuxuu suuro geliyay guulo dambe oo waaweyn oo aan ku tusi doono oo aan gaarnay ayuu suuro geliyay nidaamkaas aan dejinay waaye waxyaabaha marka iyaguna waaweyn aan rabo inaan idinla wadaago idinla share garayno ee qabsoomay muddada 2 sano ah guulaha ugu waaweyn waxa ka mid ah inaan ku faanino alxamdulillah rabbil caalamiin inaan soo saarnay profitable traders dad traders caan ah oo dunida laga garanayo hadeerto aan Soomaalidu ay garanayso oo suuqan ka shaqeysta inaan soo saarnay waan ku faanina adiguna inaad mid ama laba garanaysa laga yaabaa haddaad garanaysid ma sha Allah soo qor profitable traders waan soo saarnay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaad arkaysaa Sunforex waxa ka mamnuuca oo aan marnaba aan ku arkayn cid lacag ururinaysa oo oranaysa lacag baan idinku shaqeynayaa keena miyaad marnaba aragtay commentigaysi marnaba miyaad aragtay cid lacag keena aan kugu shaqeynay ma jirto qofka wadadan saxda ah qaada ee hadda aan idin sheegay soo raacay kuwa loo haabi maayo ama kuwa bahari maayo inuu qof miskiin yiraahdo lacag aan kugu shaqeeyo ka yiraahdo qofka wax bartay $123 ay ku dhaqaaq karaya waa shur weeyaan taana midhaheedii alxamdulillah rabbil caalamiin waan haynaa waanu ku faananaa maanta taas waa marka tasawir galaysiin qof Sunforex aan arkayn ama xafiis u furan yahay oo lacag baan ururinaya ama cid baan lacag u shaqeynaya ma arkaysid waaye waxaan soo saarnay aan ku faananaa maanta in international adduunka aan soo saarnay macallimiin international
local way dhaafin qofka Soomaali macallimiin Soomaaliga yani arday Soomaalidu wuxuu dhigaya ama waan dhaafnay Sunforce way dhaaftay waxay maraysaa maxay international macallimiin international ah oo Sunforce la aqoonsan yahay oo aan powerful ku jiro 10 ka bixiya haddaad garanaysid 3 chat igu soo qor 3 chat igu soo qor macallimiinta mid awalaba soo qor oo Sunforce waa international waa la aqoonsaday weeyaan ma aha local way ka bixeen website ay leeyihiin waa ka dhex bixeen waa international halkaas waa halka u socono waan soo saaray kaan ku faanina waxa kale noo qabsoomay alxamdulillaah rabbil caalamiin liidaro ciida ka badan oo Sunforce aan soo saarnay Sunforce waxa ka soo dhex baxay Germankii ugu horeeyay ee East Africa ka soo baxa ayaa ka soo dhex baxay Sunforce muddada 2 sano waa Africa East African ka leh bariga Africa oo dhan ama geeska Africa Germankii ugu horeeyay ku faanina ayaa ka soo dhex baxay Sunforce ما شاء الله سوقر وحكى صار بحي معي انتاسو ب 5000 ايا soo baxay 2000 ciidaas ka badin 1000 habatrin dhamaantood waa leaders international waa leaders weeyaan marka alxamdulillah rabbil caalamiin intaasina way soo baxday maantana waynu haynaa midhii waxaan kale ku faanaa maxay dhalinyaro fara badan inaan u sameeynay shaqo abuur oo iyagu trapela midii laba lama oran karo waxaad garan kartaa videogii maanta videoda ardayda soo duubayeen waxaan u mahadcelinayaa ardaydii dhiirigelinta noo soo diray sida matrin kow ilaa ma oran karayo talyaaniga kuwait nairobi meel walba video clip waan arkaysaa u dhaxyaacaya dhammaantood waxaan leeyahay inuu wada mahadcelino qof kastana waa inuu mahadceliyaa oo waxa weeye uu shukri naqaa oo alxamdulillah rabbil caalamiin oo cidii wax tartay waa inuu mahadceliyaa marka ardaydaas xil qaantay ee videoda soo duubay u duceeya iyaga insha Allah waa ku faanaynaa meel kasta joogaan waxaan suuro gelinay oo aan ku faanaynaa in macadka adduunka ugu weyn I am powerful adduunka ugu weyn wixii hadal halkan iska dhig iyo dacaayadka qofka yani dadka negative ka ay ama la oran karo waa xaasidiin ay la taagan yihiin laakiin qof qir dafiri kara ma jiro website-ka adduunka ugu weyn ee laga barto cilmigan forecastku inuu I am powerful yahay cidiidana ma jirto qof leh ashunka adduunka hadaad waa xaasid qofka xitaa qof IML ka mid ahayn dad wixii IML aan ka mid ahayn laakiin haddana qirsan inay IML tahay halka ugu weyn ee laga barto cilmigan waayo in ka badan 100 macallin ayaa IML live soo galo oo casharada bixiya marka macadka adduunka ugu weyn hadalkiisaan dunida oo dhan hantiyay ninka aasaasay 25 sano ka badan suuqan ku jiray ayaa waxaana laga siiyay maxay channel ku hadlaya afka Soomaaliga oo la Somali channel hatta channelka garanaysaana bal chat-ka igu soo qora 44 igu soo qora iyo dhanka Facebook-gaba 44 insha Allah ku soo qora weliga ayaa lahana xaasid ha noqon xitaa haddaad qof diidan tahay ama aad meel mucaarad ku tahay waxaad mucaarad ku tahay sheeg laakiin wax jira ha dafirin oo ha qarin waxa lagu sifeynaya marka sifa xaasid ayaad noqonaysaa wax jira ha qarin waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo IML wax ka bartay oo qaarkood ka tagay IML ama website samaystay ama oo hadda IML caaya waa meeshii indhaha u kala furtay ee uu forex ba ka bartay ama ka maqlay marka adiguna sifada ha noqon qofku uu ka tagi karaa website uu samaysan karaa business ka uu samaysan karaa laakiin halkii aad ka soo aflaxday ama indhaha ku kala furtay ha xaasidin weliga taasna waxa way Sunforce waxa way ku mahadnaqnaa alxamdulillah yaleen waxyaabaha kale qabsoomay aad u badan yihiin haddaan qaar kale idila wadaago oo aan ku faanino labadaas sano noo qabsoomay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa maanta noloshooda bayska caadiga saxmay oo forex ka shaqeysa si xorriyada uga shaqeysta kuwaasoo khataro badan ay gal lahaayeen iyo tahriib ka nabad galay in dhaweyto miyaad maqashay wax tahriibaya bal commentiga igu sii wax tahriibaya in dhaweyto miyaad maqashay waa in qofku isweydiiyaa oo dhalinyaradii waddanka nacday xaggee aadeen maxaa waddankii jeclaysiiyay isweydii in dhaweyto miyaad maqashay bal ardayda Sunforex eeg bal liidarada Sunforex eeg bal macallimiinta eeg Soomaali tiimka badan Soomaali jooga Soomaa wax tahriib hadal haya ma jirto waxa lagu mashquulsan yahay qof walba sidii u noqon lahaa 6 figure 6 figure soo ma jeed alxamdulillah rabbil caalamiin marka la soo qoray ilaahay ma hadda ilaahay subhanahu iskale oo nasalon siiyay waayay waxaan ku faanaynaa maanta inaan anaguna leenahay website Soomaaliyeed kii ugu weynaa oo laga barto cilmiga forex-ka website-kaas oo la sunforex.org waxaad ka helaysaan cilmi aad u fara badan oo waxa weeye nooc kasta leh waxaad ka helaysaan midhii Sunforex xitaa ardayda videoyada meelaha marayaan record-koodii oo dhan baad halka ka helaysaan waayo waxaan ku talagalnay arday kasta xitaa inuu dib u daawado bishii hore maxaa xagaad marisay
sanadkii hore xaggaad maraysay fiidiyoodiisi waa kiimin weeyaan maasha allah soo qora websitekaasna uu shaqaynaya waxaa lahaa sunforex.org Soomaali baana iskale waxyaabaha kale aan ku faanino waa tirabeel weeyaan waxaa ka mid ah waan soo qaadanayaa xawaalada la yiraahdo Som Express xawaalada la yiraahdo Som Express xawaaladani Soomaali baa iskale teamkeena Sunforex qayb ka mid ah ayuu xawaaladan ka yahay oo saameyn buu ku leeyahay xawaaladan waxay fududeysay baahidii ugu weyneed ee dhalinyarada Soomaaliyeed ay qabeen ee ku saabsanayd brokerka marka lacag la dhiganayo iyo marka lacag lagala baxayo taasoo bilowgii markaan barnaamijka bilaabanay caqabadaha ugu badan aan la kulannay ay ka mid ahaayeen caqabada lacag la bixista taasoo dad fara badan lahaayeen barnaamijkan waa xaaraan ama culimada qaar ka hadleen sababta ay soo qaadaneen ay lahaayeen maxay lacagta la shaqeysto lagalama bixi karo berigaan bilaabayna 10 casho ay qaadan jirtay marka qaarkood lacag aad shaqeystay la baxdid sababtu waa maxay bangiyada wadankeena Soomaaliya ku yaala iyo bangiyada international xiriirka ka dhaxeeya processkaas 10 casho lagu qaadan jiray laakiin xawaaladan oo aan waqti badan gelinay waxay suura gelisay 5 minute ka yar 5 daqiiqo inaad lacagna ku dhigan kartid brokerka lacagna aad kala bixi kartid adduunka halka doodid ka joog tanna waa guul weyn oo teamweynaha Sunforex ay soo hoyeen maasha Allah soo qor within 5 minutes waa guulaha ugu waaweyn ee aan tirsanayno waa caqabad aanu xalinay oo dad badan ilaahayeen waxaan waa xaraan lama qaadan karo lacagtii lama taaban karo lahaayeen baan meesha ka saarnay ilaahay fadligii 5 minutes ka yar waliba mararka qaarkood 1 minute ama 2 minutes bay qaadanaysaa lacagta hadda aad faa'iidid inaad la baxdid oo isticmaashid waaye waxyaabaha ugu waaweyn ee noo qabsano waxa kamid ah barnaamijkan la yiraahdo FTMO oo aan isleeyahay qiyaastii 7 bilood ama 8 bilood ayaan baaritaankiisa soo wadnay FTMO challenge oo aad ka wareysaan dhalinyaro badan ayaa markaa aragtay kuwa dad lacag ka ururinaya ba waxa koornayaan waxaan naqaanaa cilmigii forex-ka laakiin ma haysano lacag aan ku shaqeysano samirkiina ma laha $120 ku shaqo kori ma laha dabadna waxa kale waxaan markaa xafiis u furteen inay dadka lacag ka ururiyaan lacag u shaqeeyaan in badan waan ka dignay ilaa bilow ilaa hadeerto dhalinyarada Sunforex oo dhan way ka digaan in cid lacag laga qaado oo loogu shaqeeyo siba waliba dadkeena Soomaaliya ma yaqaanaan forex waa masaakiin dad waxaysana ma ina wax soo kornayo ujeedada in umada la lugooyo ma ujeedadu dabadna waan ka dignay oo ka qeyn qaar baa wax ku marmarsoonayeen waxaan ku shaqeynaa ma naqaano cilmigii baan naqaano waxaan rabaa videogan caawa hada daawanaysan inaad u share gareysaan oo gaarsiisaan oo tirada maxay FTMO challenge oo Sunforex ay ku soo korisay waana bank international hatta Sunforex kaliya ma hadirto cid walba ka faa'iideysan kartaa kaas wuxuu ku ogol yahay $100,000 iska daa $300,000 ayuu ku ogol yahay inaad ku shaqeysid laakiin waxaad maraysaa laba challenge iyaga ayaa imtixaan ka qaadaya laba account oo dheema lagu dhiibay account dheema haddaad koreysid oo shuruudaha ofisid test ku baasid mid kale lagu dhiibay haddaad koreysid oo ku baasid marka waxa weeye $300,000 limit ah ayaa lagu ogol yahay minimumka ugu yar qofka loo ogol yahayna waa $10,000 weeyaan 10,000 ilaa 300,000 baa loo ogol yahay laakiin qofka challenge-ga uu marayo ayay ku xirtay marka qof walba oo le forex baan aqaanaa company-gaas oo laga leeyahay qaaradda Yurub baa lagu hayaa iska daa ummadda Soomaaliyeed lacag ma haysatee iyadii baa rafaadsanay wax lacag ka qaadan ugu shaqeynay company-ga haddaad cilmi leedahay imtixaanka mar oo ku shaqee haddaadan cilmi lahayn Soomaa marka hadda marmasiyo ma jirto waxa weeye inaad dadka dhacdo ba ku soo tala gashay taana marka frinta ay gaarsiiya dhammaan qof kasto dadka lacagaha qaad garanaysan videoga insha Allah u dira anigoo aan mucaarad ku ahayn haddana waxaan rabaa in iyagana aan badbaadiyo ummadana aan badbaadiyo ujeedadan kale waa intaas waa inaan dhammaanteen wada guuleysana waayo waxay ogyihiin laftigoodu in hadda forex tay maqlaanba ka sasayaan taasoo keentay lacagii faraha badnaa ay qasaariyeen dadkii sheeganayeen wax garanay u shaqeynayeen kaana waan ku faanay soo korinay hadeer isaguna xaquu maraya wuxuu marayaa leaderkii ugu horeeyo Sunforex leader ah oo challenge-yadan ku baasay oo waxa weeye hal bil shaqeeyay 9,000 waliba challenge-gu ku shaqeynay waxay $50,000 ayuu ku shaqeynayay company uu shaqeynayay labadii challenge-na uu ku baasay $9,000 lacag gaaraysa qiyaastii ayuu shaqeeyay faa'iiday $6,000 oo kamid ah ayaa markaa u soo dhacday oo bishii kood uu qaatay marka waa 70% ayuu company-gana bixinaya ma jirto cid bixinaysa intaas ma sha Allah uu soo qoray leaderkaas Allah barakeeyo waxaan leenahay shaqo fiican buu wadaa wuxuu ku socdaa $300,000 inuu gaaro ayuu ku socdaa waa bishii kood bishii laad ba hadda u socota ma sha Allah uu soo qoray sidoo kale arday fara badan oo qol gaar ah ayaa jira oo lagu tababaro ardayda Sunforex ee level 5 soo dhaafay oo ay challenge-yadan ku maraan oo iyagu laftigoodu ay ku kala faa'iideystaan waaye waxyaabaha qabsoomay aad bay u fara badan yihiin caawa
يعني لبدا سنة قبصومي aan soo ururinay waliba in badan oo kamid ah annaga waqtiga ilaalina waan ka tagnay waxa kamid ah oo aan caawa ku faanina alxamdulillaah rabbil caalamiin leenahay qaar kamid ah liidarada ama macallimiinta Sunforex oo jeebkoodu uu gaaray numberka loo yaqaano 4 figure ma sha Allah soo qoray dhamaantood ma sha Allah soo qor inta gaadhay 4 figure jeebkoodu uu gaadhay 4 figure oo macnaheedu yahay waxay haystaan maanta $10,000 ilaa iyo $9,000 inta u dhaxaysay degayn meelahaas degayn 4 figure soo wada qora chat-ka Facebook meel walba 4 figure aan arko 4 figure soo qor 4 figure soo qor waa waxyaabaha aan ku faanino ee aan taabanay weeyaan qaar kamid ah ayaa halka hidgareeyay oo taabtay ma sha Allah soo qor ma sha Allah soo qora 10,000 ilaa 9,000 4 figure ay u dhaxayaan numberka lagu xisaabtamo waa figure weeye 4 figure ma sha Allah soo qora please and please weeyaan waxyaabaha kale qabsamay waxa kamid ah waxa jirtay aan soo qaadanayaa inkastoo wixii sadaqada lagu baxo aan la sheegin haddana aan rabaa inaan u mahadceliyo liidarada ka qayb qaatay laba jeer ayaa waxa jirtay ay liidarada Sunforex dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ay ka caawiyaan ama qiimeeyo u sameeyaan lacagta IML la sii diiwaan geliyo taasoo ay ka bixiyeen 80 arday markii ugu horeysay ala arday ay ka bixiyeen $100 oo ay bixiyeen markaa $8,000 waa sanadkii hore sanadkanna saad ka warhayseen bishii June inay bixiyeen 364 arday inay ka caawiyeen ala arday $100 taasoo ay $36,400 ma sha Allah soo qora intii ka qayb qaadatay lacagtaas bixisay ma sha Allah soo qora labada lacood kaliya markaan isku daro waa $44,400 oo dhamaantiin aad marxaati ka tihiin lacagtaas in la bixiyay yaa caawa ku jira talow oo oran kara ana kamid aha ardaydii qiimo dhimista ka faa'iistay yaa oran kara ana kamid ah oo magaciisa ii soo qori karaya ama Facebook soo qori kara ama chat soo qori kara ruqiya barre oo joogta Mareykanka ma sha Allah ana kamid ah soo qortay Ali Awil Geelle ayaa yana kamid aha Sakiye ayaa yana kamid ah ma sha Allah guuleysta waxaan ka hadlaynaa markaa waa maxay waa wada inta soo taabsi intan aan soo bandhigay inta kale liidarada inta ay bixinayaan taa iyadu tira ma laha ay mar walba ay caawinayaan halka marka maxaad ka qaadanaysaa inay meeshan tahay meel lagu dhaqan yahay hadaa tahay one isoo wada fahamtay inay tahay meel lagu dhaqan yahay 4 figure la gaaray waayo qof leh 40,000 baan bixinaya oo Soomaaliya kula mid ah inuu dhaqan yahay jeebka qoyan yahay ma sha Allah u soo qor mar walba liidaraduna way bixin doonaan wayna caawin doonaan wixii awoodaan ummadda Soomaaliyeed way ku caawin doonaan qorshayaal fara badanna way jiraan qorshayaal fara badanna way jiraan ma sha Allah adigana ardayga caaw daawan waxa rabaa inaad halkan soo gaadhid oo aadan istaagin ayaan rabnaa weeye maxaan rajaynaynaa sanadka soo socda haddii aan leedno agosteeda next planku muxuu noqonayaa haddaba intaas waa intii aan qabanay ugu waaweynaa aan soo qaatay ee aan markaan soo nood garan karaynay annagoo aad mashquul ah weliba diyaaradda waqti badan maanaan hayn waaye waxyaabaha aan rajaynayno waxa weeye sanadka dambe haddii aan leedno agosteeda oo aan isweydiin doonno haddii ilahayna gaarsiiyo waxa weeyaan in la gaadho 5 figure liidarada inay gaaraan iyo macallimiintu iyo ardayduba qof kasta wadada aan jecnay soo qaaday waxaan rajaynayaa ilaahay idankii ilaahayna tala saarta inuu gaari doono waa nidaam degsan oo sax ayaan ku dhex keenay 5 figure waa maxay in jeebka uu gaari doona 100,000 iyo inta u dhaxaysa $990,000 5 figure waa 50 1 2 3 4 5 marka 50 100,000 bay ka bilaabmataa marka halkaas ayaan rajaynaa ducada raaciya ma gaari karnaa mise ma gaari karno commentigaysi haddaan 4 figure ku xaqiijinay 2 sano oo waliba aan gurguuranay ilmaha 2 sano jirka waad garanaysaa qof 2 sano jira Soomaa waa gurguurasho oo markuu dhashay oo markuu gurguuranayay hadeer maslada waa gaari karnaa liidarka codku furay insha Allah codkaas ka xidho hinda codkaas ka xidho insha Allah hinda badnaax ma gaari karnaa mise ma gaari karno commentigaysiya yes we can waa gaari karnaa insha Allah shaxdii iyo systemkiina waa inoo fadhiya alxamdulillah maxaan kaloo qorsheynaynaa waxaan kaloo qorsheynaynaa channelo dheeri ah inay inoo soo baxaan oo ay powerful ay ka soo baxaan channelo kale oo dheeri ah oo macallimiin fara badan oo Sunforex inay soo baxaan ayaan rajaynaynaa ma sha Allah soo qora waa qodobka labaad ee aan tigsanayno sanadka soo socda waxaan kaloo qodobka saddexaad rajaynaynaa haddii ilaahay gaarsiiyo inay inoo soo baxaan ugu yaraan 4 German-tan inay soo baxaan waa ugu yaraan August waxaan rajaynaynaa 4 German-tan inay soo baxaan oo bishii qaadanaya $10,000 5,000 tira ma laha 2,000 warkiisa daa 1,000 haba tirin isaga
waxa weeye waa qorshaha ama hadafka aan leenahay ilayhi liirada teamka Som Forex waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo FTMO challenge in ay inoo galaan oo ay halkaa galaan arday fara badan oo ku shaqaynaya $100,000 iyo ka badan ayaan rajaynaya oo qof kastoo level 5 soo dhaafay waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo FTMO-ga inuu galo challenge-ga maro dabadna 100,000 iyo ka badan uu ka shaqeeyo dabadna lacagta uu ka shaqaynaya halkaas 70% isaga iskale waxaba madabku saaraya maya sida shimbiraha iyo u nool araan ku yiri faa'iidada halka ka soo baxda account real adu aad leedahay ayaa rabaa ku shubatid dabadna aad muddo kadib aad 5 figure iyo 6 figure aad soo aadid haddaad fahantay 99 ii soo qor sida shimbiraha markaan leeyahay fahmaysa Soma wixii ku soo galaba ha cunin wixii ku soo gala kala badh account safe ku rid shimbiraha subax intay foofaan maantana soo qurdaafa habeenkina soo noqdo iyagoo dheregsan subaxina waa ka lahaan iyagoo caloosha maran tahay sidaas lama rabo inaan u shaqeyno qodobka ugu dambeeyaan ku saafmeeray waxa weeyaan haddii ilaahay idmo Som Forex inaan gaarsiino adduunka oo dhan oo ay noqoto maxay international waxaad ogtihiin hadda waxaan hirgelinay maxay oo ku guuleysanay Som Forex manhajka dhammaystiran ilaa dhammaad Soma waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay qadaro in aan dhawaan ku dhawaaqno qayb kale oo Som Forex ka mid ah oo luqadda Englishka lagu baranayo cilmiga Forex kaasoo rabno dhammaan adduunka oo dhan inay markaa soo hoos fadhiistaan Som Forex hadafku marka waa fog yahay meesha loo socdaana way caddahay haddaad fahanteen ducada soo raacay insha Allah intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan mikrofoonka dib ugu celinayaa macluumadeena weyn Ifraax Awil back to Ifraax ma sha Allah ما شاء الله ما شاء الله دمانتين ان usoo qorno ان codka iska xir please ما شاء الله loo soo qoro injineerkeena runtii ituso itaabsi iska hada looma hadlo maxaad qabatayna ma ahan waa maxaad qabato ituso itaabsi ah ما شاء الله الله barakeeyo dhamaantiin weynaha Som Forex injineer aad ba u mahadsan tahay hawshan aan soo qabanay iyo inta inoo hartan waxaan la rajaynaa inuu meel fiican gaarsiin insha Allah si gudbir ku gaarno hadii ilaahay idmo mahadsantahay injineer waxaan ku soo dhaweyn doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo asaasaheena labaad maskaxdii ka dambeysay inuu barnaamijkan ina soo gaaro haddaan ahay teamka Som Forex chairman 10 Sharmaaka Cabdirasaaq Maxamed oo runtii aan ku faanayno oo aan leenahay maanta guulaha aanu sheeganayno maskaxdii noo keentay ama fikirkii qofkii soo gaarsiin inuu ahaa Sharmaarke aad baan ku soo dhaweynayaa soo dhawo ma sha Allah halila soo dhawo Sharmaarke dhanka chat kan ka arnaa Sharmaarke soo dhawo ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay waa dhawahay waxaana aad ugu mahad celinayaa injineer Maxamed Jaamac oo soo dulmaray dhammaan taariikhdii ay soo martay Som Forex anagoo aanan ka hadlin caqabadaha inta badan kama aan hadlin laakiin wuxuu ka soo hadlay intii ugu badnayd waxyaabihii taariikhiga ahaa ee aan soo marnay waxaan rabaa wax yar inaan insha Allah taala aniguna aan ka iraahdo safarkan runtii ma ahayn safar fudud ma uusan ahayn oo easy ah aad isaga fududoo caqabado badan baan soo maray caqabado aad u tiro badan ayaan soo maray dadku markii u horeysay ma aysan aaminsanayn in barnaamijkan uu yahay barnaamij shaqayn kara aqoontu aad bay u yarayd dadka waxaan yaqaanaa aad bay u yaraayeen dadka inta taqaanin qayb yar oo xaasidiin ayaa jirtay oo aanan jeclayn inay la qaybsadaan waxa marka ay haystaan dadka kale inay la qaybsadaan saas darteed waxaan go'aansanay in barnaamijkan si walba oo aan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo ummadda oo dhan aan u gaarsiin lahayn alxamdulillah rabbil caalamiin Som Forex maanta adduunka oo dhan meel aysan ka jirin ma jirto oo familieskeedu aysan joogin maanta lama hayo aad baan midaas ugu faraxsanahay teamka Som Forexna meel alla iyo meesha joogaba waa very proud way aad buu wuxuu ugu faraxsan yahay meesha uu joogo aqoontooduna waa ma sha Allah way haddaan soo qaato qaybtan macallin Maxamed Jaamac uu idin sheegay macallimiinta internationalka ee website-ka Go Live qaybta luqadda afka Soomaaliga lagu soo daray saa u jeedaan injineerka macallinkeena weyn waa kaasa halka ayaa casharadii oo dhan oo diyaarsan ay ku jiraan isugu jiraan dad international oo ajaanib ah iyo dad dhalinyarada Som Forex team ka tirsan ay isugu jiraan waana weekly way weekii ayaa intaas oo qof waxay daawataa casharada iyo culumta ka baxa qaybta channelka Soomaaliga ee Go Live
marka maasha allah iyadana insha allahu tacaala kusoo kaalmeeya website-ka weyn ee macluumaadka oo dhan ay ku jiraan injineerku ka hadlayay oo dhanna halakan ayay iyaduna ku jirtaa oo qofku wixii macluumaad kasta uu ka heli karaa guud ahaan haddaad fiirisid goal life-ka markaad si toos u wada fiiriso oo aad halkaas ka aragto waxaad arkaysaa dadka horta mawduucan ku jira ama ka faa'iideysta goal life-ka waxaa lasoo dhigaa qaybaha ugu horreeya waxaa lasoo dhigaa macallimiinta loogu daawashada badan yahay marka waxaad arkaysaa in meeshan hadda aynu joognaa aysan ahayn meel loo kala inaysan ahayn tahay meel international ah macallimadaas ayaa ugu fiyuuga badan leh ee Kimberley la yiraahdo 68,000 oo viewers ah ayay haysataa usbuucii iyadaa ilaa hadda number 1 ku jirta macallimadan kale ayaa ku soo xigta 54,000 oo viewers ayay haysataa oo daawado casharadeeda la socda 30,000 29,000 28,000 marka waa meel adduunka oo dhan ay isugu yimaadeen weeye dad 100,000 in ka badan ayaa u qorsheysan sanadaha soo socda inay milyuumaad gaaraan annaga Sunforex team ahaan insha Allah horumarka iyo horumar kale oo kasii wanaagsan ayaan jecelnahay inaan gaarno aad baan ugu hambaliyeynayaa inta maanta soo qaban qaabisay kulankan iyo inta ka soo qayb gashay dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo ayaan idin rajaynayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله إن هلا صقرا أو chairman شرمارك عبد الرزاق سويدن كنول ما شاء الله همبلي عن لي هاي دمانتين إن شبابك ما تصنتهاي إن شاء الله وحن نسوق قرني نقيبي دم برنامج كنا عوان قلت لقلني تبال دقة يدماشاتك سنة جوردي أما لما سنة شركة كسوري مركز الأساسي وينها Sunforex إن شاء الله إن وحن ويردونا ليدرس كعوا إن كلمة دو ذكرني هدونا إن شاء الله إن برنامج كنا نوضنه إن وحن ويريا ليدر رنتي واحد بدن نلسو السعودي وصبر بدن إن وحياة بدن عقبان نلسو مري إن إلا يهدد نلتشوجه أتكيس بدن رنتي إن أنا وهم بليانيو دكتور هند إن شاء الله إن محمد علمي وانكوير يا دكتورة سودو إن كسودو ما شاء الله معلم فرح وما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان جيرمانada liidarada ardayda marti sharafta kala duwan dhammaantiinba sanad guuro wanaagsan waa farxad weyn in aan arko caawa sanad guuradii labaad ee tiimka Sunforex oo geediga safarka bartamihiisii aan soo raacay farxad weyn ayay ii tahay sanadii bar inaan ka mid ahay tiimka Sunforex horumar badan iyo waxyaabo badan oo injineer Maxamed Jaamac Sahal Khayr Allah siiyo uu ka hadlayna in badan oo la taaban karo aniga lafsadeyda iyo nafteyda khaasatan waxyaabo uu ka sheekeynaya injineerka horumaradaas tiimka uu soo gaaray step by step aan ula soo socday anigana step by step changeskaas ay igu soo dhacayeen oo marba meel aan kasii guuray marba kor aan usii socday halkaas tallaabooyinka kor loo sii qaaday maalinba mid aan hore usii qaadaynay dhammaan jeermaanadii founderkii injineer maxamed jaamac jeermaan sharmaarke dadaalkii ay bixiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed ku bixiyeen wanaagoodii iyo quruxdoodii iyo horumarkoodii wuu muuqdaa maasha Allah waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo sida injineerka uu noo sheegay targetkeenana uu yahay 5 figure sanadka soo socda August in badan oo naga mid ah ay gaaraan oo xaqiiqa ahaan sida caawa stepskaas loo soo bandhigay si lamidana loo soo bandhigi doono horumarkaasna waxa lagu gaaray waa sabar dulqaad wada shaqayn dhammaan liidarada Sunforex iyo maamulkoodaba ay wada gaareen qof walba oo inaga mid ah ka liidar ahaan iyo ka arday ahaan waxaan nahay tiimkeena Sunforex one family hal qoys hal qof hal shakhsi isku fikir isku maskax isku shaqo waana waxa noo fududeynaya mar walba inaan sii gaarno horumar sanadkii hore ka horumarsan shalay maanta kasii horumarsannahay maantana berri aan kasii horumari doono haddii Ilaahay yiraahdo dhammaanteena sidaas ayaan rajaynaynaa insha Allah sanadka soo socda horumarka aan maanta joogno ee caawa aan ka hadlaynay mid kasii weyn inaan qaadno iyo tallaabooyinkan hadda lasoo bandhigay kuwa kasii horumarsan dhammaan hambalyo lagama gaari karo haddii la dhaho sanadkii lasoo dhaafay iyo intii tiimka Sunforex aan ka mid ahaa waxyaabihii isbedeladii soo dhacay laakiin waxaan ugu hambalyeynaa dhammaan ardayda liidarada Germaniska
qof walba oo tiimka Sunforex ka mid ah sanad guuro wacan insha Allah sanadkan sanadkiisana bashbash barwaaqo iyo khayr ilaahay nagu gaarsiiyo annagoo caafimaad iyo nabad qabna waxaan rajaynayaa insha Allah horumar intan kasii badan inaan gaari doono sanadka soo socda aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أد بوما سنتهي ما شاء الله اللهم بارك همبليو أي الله مركلته إن شاء الله وحن يريد دونا ليدر كأنه وحي هذه لهيد كلمة دي سانسين دون إن شاء الله فيس فرح والدرد ناتشر مركز جوكته كم إذا تيمنا Sunforex دوان نقص برتاي بالعرق تيجي ما دام إنه عصبتاي هنلاقي إن شاء الله إفراح السلام عليكم ولا aad baad u mahadsantahay adiga iyo leaderska kalaba waan salaamayaa runtii Ifraax sida sheegtay anigu teamka Sunforex waxaan kamid ahay muddo yar oo aan badnayn dhowr bilood la oran karo alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan oran karaa علشان iftiinkii indhaha ii furay baan ugu yimid waxaan oran karaa macallimiin wanaagsan teamka Sunforex meel kala dambeyn ixtiraam maaragtay ismaqal aan oran karo hooyiya aabo boqolkiiba boqol aan u mahad celinayo maasha Allah tabaaraka Allah aan leeyahay ilaahu carabka umada bal ha ka raacinin injineer Maxamed Jaamac oo boqolkiiba boqol u mahad celinayo oo maasha Allah tabaaraka Allah u leeyahay sidoo kale liidaradayda Samsam Ahmed oo daqiiqad saacad ii garab taagneyd oo xataa saq dhaxaynta waco ila hadlaysay oo baahideedan u sheegayay oo ay garab taagneyd meel aan oran karo hooyo aaba ku jooga waxaan ku soo koobayaa waxaan oran karaa teamka Sunforex waa hooyo aabo sidii ilmahooda ku garab gelaya maasha Allah tabaarakallah waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin waan idin mahad celinayaa insha Allah waxaan rajayn doonaa wada shaqayn iyo maaragtay wax isku qabad inayna dhex mari doonto aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum anigana intaasan kusoo gabagabeynayaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله نفيس فرح آد بوما سنتهاي سولو مركلاتو وانو جعلنا إنا نمقلنو ليدرس كهورة ليدرس كدحي كوا ضمب كوا نقصو بيردون إن شاء الله قفل بينا نعدكي سان مقلنو وان آد بانو جعلنا ونسولو إن ما شاء الله وان ما سنتهاي إن شاء الله وحن ويري دونا ليدر إنه حكته دي لها إدمو نلاقي بصدون 1000 ديكن UK حمدي هذا عدكي مقص إن شاء الله سودو مقفوك سقبصه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إفراح وسلام يا عدكي إلا مقلة رجينا سيفي عم بالغو مقلة حمدي كسعه ما شاء الله تبارك الله آدي أدبان عاوي وفرح سنة هاي فرحتنا لمسو كوبي كرو الحمد لله رب العالمين أولا الله سبحانه وتعالى أمهد علينا نقو نوافجي أو نقو كلنسيي مدشن ثم وحنا مهد علينا إنجنير محمد جامع يشر ماركي يدمان ليدرس كلا سو شقي أو لا سو قرب قلي أرهن كان إن أي نسو جارسيان ولينا أتهاجن أنا قلفت كان إن نوعها تببر أما قدوة في عنهم كده ينكرنا أو إن أنا فيها ku bedeli karno waliba aan ku haweysan karno in dad kale naftooda aan bedelno si gaar ah iyo si guudba waxaan ugu hambaleynayaa bahweynta Sunforex oo ah iyagu dad isku bahaystay in ay sameeyaan isbedel aanan ahayn qof kasta markuu isbedel ku fikirayo wuxuu ku fikiraa inuu naftiisa isbedel ku sameeyo laakiin iyagu waxay hal mar isla sameeyeen ama ay ugu talagalin isla sameeyaan una suurta gashay ilaahay fadligiisa inay naftooda iyo nafaf kale oo walaalahoodba ay isbedel ku sameeyaan alxamdulillah rabbil caalamiin anigu waxaan kamid ahay dadkii u soo taagnaa ama joogay Sunforex markii la aasaasay laakiin ma oran karo nasiib darro maana noqon dadku ugu horeeyay ka faa'iideystay waxaan ku soo biiray dabayaaqadii sanadkii tagay alxamdulillah haddii aan hore ugu soo biiri lahaa way fiicnaan lahayd laakiin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahday law taftax amal shaytaan marka alxamdulillah inta hadda aan ka soo gaaray iyo inta aan ka faa'iideystay baaba wax loo dhiga lahayn alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan rajeynayaa halka aan joogo halka sii fog inaan sii gaaro waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay weligeena aan jeclaa in aan dad caawiyo oo aan arko dad badan oo naftooda wax ka bedelay waxay igu sibood gareysay Sunforex fikirkaygii ama hankaygii aan lahaa
alxamdulilah dad badan ayaa wax iska bedeleen oo aan sabab u noqday sababtaasna waxaa lahaa dadkii noo aasaasay Sunforex oo noo keenay mahad balaarin ha ka gaadho waxaan kale oon rabaa qof kasta oo caawa i dhegaysanaya oo aanan ka mid ahayn Sunforex ama aanan u faa'iideynin walaalihiisa kale oo Soomaalida ama naftiisaba aan u faa'iideynin waqti kaama tegin waqtigu aad iyo aad buu u badan yahay inta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu gaarsiiyo uu nabad ku gaarsiiyo way ka faa'iideysan karaysaa isbedeladii hore oo la soo sameeyay waxay ahaayeen isbedelo laga yaabo inay waqti dheer soo qaateen wax walba markay bilow yihiin in lala soo saahiro ama la soo wado waqti bay qaadataa laakiin idinku hadda waxaad joogtaan meel ay fiican tahay dad badan oo khibrad u leh oo soo arkay oo soo jabay oo idin hagaya ay joogaan waxaa laga yaabaa guulaha maanta ay gaareen dadka Sunforex wax u ah hormuudka xilligii ay ku qaadatay xilli ka yar oo ka kooban inay idinku qaadato oo aad muddo yaroo fudud aad isbeddel ku samaysaan marka qof walba oo dhagaysanaya inta ku jirtana waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay horey u socda dadaalka halkaa ka wada dadka walaalihiina sii caawiya إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه حديث صحيح يا أها قفكو أنتو ولالكيس وعاونتي سكو مشغول سيهاي إلهي سبحانه وتعالى أيا إساقنه عاوية وهوري وذاي مركا إن دولاليهن عاوسان إن نفيهن عاوسان هوري أسي وذا إنت أنوليك فائدي سنينه وحاليا هاي وقت إذن كمتقينه كعاميشة أو إستاغو هوري أسعودا وأن إذن سلامة يا دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله حمدي أد بأمها سنتهاي إن وأنا كأجمع علني أسوي نفسن برنامج كنا لقي قاطي إن شاء الله وحن أيري دونا وقت كنا وكم من أوجس إن إنجنير ياسر علي بوس وكمت ليد ريسك دوان نقصه ميل في عنك جاري إن تريدر ليدر معلن runtii dadaalkiisu uu aad u cad yahay haddaad maqlaysid injineer yaasir cali boos oo ku sugan gaalkacyo aad baan kusoo dhaweynayaa soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rajeynayaa in codkayga la maqlo dhammaantiin aad baa inii wada salaamaya tiim weynaha Sunforex waxaan leeyahay marka koowaad hambalyo sanad guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay tiimkani xaqiiqatan wax weyn ayuu tiimkan ku soo kordhiyey bulshada Soomaaliyeed khaas ahaan markaan iskala hadla aniga ahaan runtii waqtiga aan ku jira tiimkani iyo waxa weeye effortkii waxa aan ka helay xaqiiqatan waa wax aad u kala fog u kala una badan waxaan dhihi karaa hal qof oo individual noloshooda ma aysan bedelin tiimkani laakiin bulsho Soomaaliyeed ay mataqaanaa noloshoodii wax ka bedeshay aad baan ugu hambalyeynaya leaderskii iyo waxa weeye madaxdii ka soo qayb qaadatay inuu tiimka soo socdo inuu tiimka guulaha la taaban karo uu gaaro inuu tiimku soo saaro runtii arday maanta aan ku faani karno inuu tiimka soo saaro leaders runtii waxa weeye magac leh sidoo kalena xirfadii suuqa kan ku shaqaysanaya sidoo kale inuu tiimka sameeyo magaca Somali Forex magacii dalka xaqiiqatan uu kor u qaaday maanta san wada ogsoonay Sunforex waa a pit international way kaliya waxa internationalkii inooga dhiman inaan helno magac international iyo inaan helno waxa weeye inaan helno dad ma aragtay international hadda Soomaali way ku kooban tahay marka laakiin markii aan la fiiriyo qaabka organization-kani ama teamkan uu dhisan yahay xaqiiqatan is a bit international ayaan dhihi karaa waa runtii markii international laga yimaado wuxuu wax ka bedelay qoysas badan dhalinyaro badan runtii waxa weeye waa waqti wanaagsan runtii waqti aad u yar iyo achievements iyo guulo waxaan u maleynayaa injineer yaasir safar buu ku jiray khadka inuu ka go'ay dabcan
codkina waa ka go'ay zoomkina wuu ka dhacay marka insha allah waxaan rajeynayaa intii ugu muhiimsaneed inaanu ka maqalnay aad iyo aad baan u salaamaynaa salaantan uga qaadnay iyo hambalyada u guddoonnay maasha allah baan u leenahay maasha allah loo soo qoro macalinka waxaynu joognaa insha allah gabagabadii insha allah laakiin liidarkeena ugu dambeeya aan siin doona codka oo runtii aad iyo aad noogu qaali ah xiisad kasta ama suum kasta haddii uusan liidarkaasi ka hadlinna dhadhanka waxaad moodaa suumka inuu wax ka maqan yahay runtii tiirarka ugu weyn ee ka mid ah Sunforex ay ku taagan tahay aana ku faano waxaan u yeeri doonaa maamada tiimkeena Sunforex walaashay fahmo cali fahmo soo dhawow maasha allah waa liirad B5000 ah UK degan laakiin hadda muqdisho ku sugan fahmo soo dhawow insha allah kelmadaada ku soo xabiibtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله تبارك الله مركب هوري وان جودا سلام يا ميل كستو أتكو سكنت هي مقام كستو أتكو تقف كستو إن جمدا مركب لبعض حنا أدوم هذا قيا الحديدية برنامج في نقرب بدن اللي ترد فرح عويل جيلة وما شاء الله تبارك الله أهونتي وضبحاتك Sunforex بعد إنتاس وحن سي كل إيا لعب رنتي عن مركلة ولايهاي إلهي عز وجل عمري كان هيدين بركة عافمات كان هيدين بركة يو أساسياش Sunforex رنتي دوالا هذا يعني وحن شيء بدني مجران over exciting بان رنتي هاي مقياسي كريو sida moodkayga uu yahay meesha maanta aan taaganahay meesha laga yimid waxa la soo maray waxa maanta dadka hortooda yaala runtii qofkii aan ogeyn maanta qofkii aan ogeyn ya wallahi waxaan isleeyahay wax badan baa u dhiman marka waxaan leeyahay Sunforex waa soo socotay bartii midhaka gurashaday maanta maraysaa haddee waa brandgay waxa waaye wax shaygu hadduu brand noqdo oo magaciisu dee tago oo waxtarkiisa iyo qualitygiisa suuqa galo waa tegey marka waxaan leeyahay dadka bannaanka ka taagan war fursadan laydiin sameeyey laydiin gogol dhigay qodaxda laga soo saaray maxay ahayd lasoo turxaan bixiyey lasoo shiilay bisil maanta aad helayso group walba team walba sub team kasta individually annagoo hal family qofka ku soo sponsora no matter what meeshu rabaa ka imaado qofka Sunforex aad u timaada uu ku caawiyaya waxa aad u baahan tahay ka caawiyaya yaa waxa laga helaa ilaahay baa laga helaa unity-ga inta la eg asaas waxa u ah runta waan wallahi baasha runta reeban ku dhita waxa u ah waxa waliba meel bay ka aasro unugayaga hore daacad ah anaga askumkayagii hore ya aasaasayaashi aasaasay Sunforex ayaan ahayn dad hagardaamo raba ayaan ahayn dad xiqdi yaqaana ayaan ahayn dad xaasid yaqaana iyo waxa Soomaalida la haray iyaga madaxoodan ku gaadhnay meeshaan taagan waayo iyagaanu daawanaa iyagaanu eegnaa iyagaanu habdhaqankooda raacnaa waxa weeyaan awrka yar maxaa la yidhi awrka weyn saanqaadkiisu leeyahay wadadii iyo wanaagii iyagu ay dhexdeeda la taagan yihiin habeen iyo maalin labadeeda garab ku yihiin ayaan anaguna maxay ahayd idin hareero joognaa marka waxaan idin leeyahay waqti yar baa hadhay waqtigaa yar ka faa'iidaysta in yaroo hadda igu soo dhacday intii meesha aan fadhiyey ayaan rabaa inaan idin dhaahdo waxaan idhi Sunforex baana la yidhaa Soomaaliyay saaciidayaal ayaan ku sifaysannahay aqoontu inay sarreyso seegseega laga gudbo ayuu sahanka iyagu ahaa saadaashii oo wacnaatay iyo sacyigii aanu gelinay ba waa suuro galeen si xun waxa u raadin ummadda xoolaheedana ha salfan signal suuqu qilana yuu surmi kugu diline sacabo furan ku soo dhawow aqoontaada sare u qaad suuqa keligaa saadaali signal ha qabeela samayso sidaasaan kula rabaaye Soomaalay soo dhawaada salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله فهمة وحيابها نقول بيسية وحويان waxaan dareemayay fahmo inay tahay motivational speaker qof hadii ay hadasho runtii madashuba ay gilgilmayso
aad baan kaaga hambalyeynaya kaaga mahadcelinaya maasha allah dhammaantiin meel kasta joogtaan aad baa u mahadsantihiin waxaynu joognaa guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena caawa kolley wax badan waa lasoo yiri wax badan lasoo qabto waan idin sheegay halka mid oon aadka ugu faanayno waxa weeye oo runtii qof kasta oo tiimka Sunforks ka mid yahay xor ayaan nahay si xor ah annagoo waxaan seexanaa habeenkii xor ah oo niyadeenu degan tahay waxaanu soo kacnaa annagoo happy ah waxaanu shaqaysanaa annagoo happy ah meeshan doonaan mari karnaa maqaaxidan doonaan fariisan karnaa meesha doonaan safri karnaa taasna maxaa keenaya waxaa taa keenaya dad bili aadan xoolihiis ma qaadano haddii aad maanta $1 Allah ka dhigay aad qof xoolo ka qaadid walow ayaad ku noolaanaysaa qofna xoolaha ka qaadin si aad xorriyad ugu noolaatid si aad mustaqbal fiican ugu noolaatid tiimka Sunforks sirta kaliya ee guusha ku gaaray oo horba ku gaaray waa inta dhammaantiin meel kasta joogtaan waxaan idin leeyahay